waad soo dhaweynaa runtii magaalada joogtaan sida ka muuqata boorka waa caasimadii nabadda Somaliland taa waad ku soo dhaweynaa this city of peace hawsha aad u socotaan oo ah degmadii saddexaad inaanu nahay in programkaygu uu dejisan yahay marka hore inaan idin tusno wixii oo muuqaal ina daawataan on idinku daawadsiino markaa projectorka wixii aad halkaa ka aragtaan idinkoo sii guntaday inaan idin geyno goobihii aan wax ka qabano waa tus oo taabsi waxaan xasuustaa dhowr bilood ka hor markii aanu halkan nimid iyadoo la bilaabayo daarta weyn ee naga dambaysa ee quruxda badan oo ahayd ballanqaadkii maayarkii degmada Borama uu ballan qaaday inuu dhiso qaybtaasi oo ay ku umulaan dumarku run ahaantii waxa kale oo aan maanta aad uga mahad celinaynaa maayarka degmada Borama qorshihii uu nala wadaagay ee ahaa in uu ugu talagalay dhinaca caafimaadka qayb lacag ah oo loogu talagalay ama u taala dhinaca emergency-yada waxa ay tilmaamaysaa wada shaqaynta guud ee wasaaradaha dawladda iyo dawladaha hoose waxay qayb ka tahay maamul daadajinta xaafadan xaddi aan joogno dadka umulaya ama dadka caafimaadka degdega u baahan Borama u doonan jireen maanta marka halkan baa loo keenay iyadoo adeegina bilaash yahay qalab casri loo keenay dhaqaatiir iyo kalkaaliyoon caafimaad oo xirfad lana loo keenay taas waxay qayb ka tahay markaa siyaasadda guud ee xukuumadda hogaamiye mudane Muuse Biixi Cabdi ee Jamhuuriyadda Somaliland dadka reer Somaliland markaa waxa laga doonayaa marka saas oo kale adeegga lagu soo dhaweeyo iyagoo inay cashuurta bixiyaan markaynu cashuurta bixino waxa ka dhalanaya markaa adeegyada noocan oo kale inoo fududaadaan waxaa kaloo jira xukuumadda waxa u qorshaysan barnaamijka in la gaarsiiyo deegaamadii mashruuca JPLG-gu qaadhaan bixiyaashu aanay gaarsiinin ayuu madaxweynuhu ballan qaaday in la gaarsiiyo deegaamada waxaa ka mid ah Ergaabo waxaa ka mid ah Laasacaanood waxaa ka mid ah Caynabo intaaba dawladda si toos ah u bixinaysa oo gaarsiinaysa barnaamijkii maamul daadajinta dadaalka lagu muujiyay ay ku muujiyeen maamulka Borama inay ballaariyaan qaybtii dumarku ku amulayay oo markaa imika maamul dhammaystiran oo MCH ah adeegiisi u dhan yahay looguna talagalay xaafadan cusub in loo sameeyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida u dadaalayaan waana arrin la arko wax qabad muuqda this building this MCH the schools that we have seen this morning what's important is it's not USAID it's not Save the Children it's not the UN this money that is doing this is your money the taxpayers of Borama are paying for this and the local government is managing this I think this is the only place in Somaliland I have been where 50% of the children in school are girls. This is a success. waan idinku soo dhaweynaynaa taas waxay muujinaysaa sida ay nooga go'an tahay inaan baahiyaadka bulshada wixii aanu balan qaadnay sideeda uga jawaab celino oon u fulino dhammaan waxbarashadii caafimaadkii oo maanta halka ku wada dhan wasaaradii caafimaadka wasaaradii waxbarashadooda joogta waxaan aad ugu mahad celinaa sida quruxda badan ay maxay wax noogu qabteen waxaan deganeen meel hayjada oo mulse lahayn oo maxay caafimaad lahayn oo ilmo dhiig joojina wax noogu mid lahayn imikana waxaan naloo dhisay dadka guryaha quruxda badan leh waxaan naloo keenay biyihii magaalada oo maanta noo yimiday waxaan u mahad celinaa dawladda Somaliland sida wax qabad kale ay uga shaqeysay dadku waxaan u sheegaynaa inay soo dhaweeyaan meel kasta wax qabad dawladdu ay ka qabanayso oo cashuurta ka mid tahay iyo waxyaalo kasta dawladdu maxay u qabato dadku macnaha alaabta casriga ama dhakhtarka la noo soo kordhiyay ee casriga iyaan maanta ugu mahadnaqaynaa dawladda Somaliland hay'adaha iyo dawladda hoose ee Borama kan oo magaciisa la yiraahdo Sheekh Nuur Borama waxa ka dhigata arday gaaraysa 237 sida la ajilgeed baanu madaxda sharafta leh oo aad uga codsanay inay nala soo kordhiyo fasalada dugsiga hoose dhexe Sheekh Nuur markii hore qorshaha wasaaradda waxbarashada ay ugu tala gashay waxa dugsigan dugsi sare in laga dhigo oo waxa loogu tala galay dhammaan ardayda ka imanaysa buurta waxa xaggan ka soo xiga laakiin markii ay timiday in la sameeyo siitee xaddi ayaan ka wasaarad ahaan go'aaminay inuu dugsiga noqdo dugsi hoose dhexe wax kasta oo macquul ah
annagoo iska kaashanayna wasaaradda waxbarashada inaanu ka jawaabno hadduu ilaahay idhaahdo waa iskuulladii ugu horreeyeen kuwa aynu ku aftaxnay iminkana muddadii baaba naga dhowaa waa kuwa aanu ku khatimayna hadduu ilaahay idhaahdo kordhintoodu baahi xaqiiqo runtii ka jirtay xaafadan siteexaddi oo bulshada iminka markaan la joognay ugu dambeysay MCH-ka loo furayey ay nagala hadlayeen in iskuul ay helaan in iskuulkii labadii fasal iyadoo 4 fasal dhisay 2 fasal lagu daro sidaan wada ogsoonahay markaa standardka caalamka waxa weeyaan ardayga waxaa lagu talagalay wax ka badan ugu badnaan 3 kilomitir iskuulku inuu jiro halkan iminka joogno iyo xaafadda waxay soo jiraan 1 kilomitir dadka xaafadan degan dardaarankan siinaa wuxuu yahay kalaasada iminka lagu daray iyo kuwa dambe lagu dari doono insha Allah haddii aad arday keentaan anuguna deerkana waad ku dari doonaa doonaysaan library-ga ardayda wax ku akhrisanaysan wala keeni doonaa laakiin haddii arday fara badan ima weydo deegaamada kale aanu geen doonaa baahida kale looga baahan yahay